Assalaamu calaykum, waa Yuusuf Shire, isku soo noqod wanaagsan. Muuqaalkii kan ka horreeyay waxaan idin ballan qaaday inaan samayn doono taxane ama mowduucyo aan uga hadli doono Safarkaygii Chevening iyo processkan aan ugu maray. Safarkaas soo bilowday October 2020 kuna soo idlaaday guul kadib markii aan ka mid noqday 12 qof oo Soomaali fursad u helay inay deeq waxbarasho oo hal sano ah ay ka helaan ama ay ka dhigtaan United Kingdom. haddaba ku soo dhawaada barnaamijkan taxanaha oo ka koobnaan doona dhowr qaybood aan idinkula wadaagayo waayo aragnimadeydii safarkaygii wixii aniga ii shaqeeyay iyo waxa ay la tahay muhiim in uu qof kasta u warhayo khaasatan dadka doonaya inay barnaamijkan xareeyaan. waa tahay haddaba aynu ku bilowno xog guud iyo waxa uu yahay barnaamijkan. waa maxay Chevening? Chevening scholarship waa scholarship ama deeq waxbarasho oo caalami ah oo ay bixiso dawladda UK waxaana maalgeliya Foreign Commonwealth and Development Office FCDO iyo organization partner la waxaana ka faa'iideysto wadanka waxbarasho u yimi in ka badan 50,000 oo qof marka waa network aad u ballaaran. barnaamij ujeedkiisu waxa weeye inuu horumariyo hogaamiyayaasha dunida marka emerging leaders erayo waxa jira keywords oo runtii kaasoo horbaxaya in badan processka ilaa bilow ilaa dhammaad sida emerging leaders, network, influence, potential. marka dadka potential kale oo hogaamiyayaasha soo kobcaya oo saameynta leh bulshadooda ka dhex muuqda ama ha joogaan careerkooda qaybtii bilow ahayd ama meel dhex joogaan dadkaas ayuu target ka dhigtaa, dadkaas ayuu gacan qabtaa oo uu horumariyaa. marka ujeedku waa in dadkaas intii la keenay Ingiriiska ay culture-ka iyo khibrad badan halkan ka qaataan kadibna ay wadankoodii ku laabtaan saasna ay ku sameeyaan positive change xiriirka labada wadan u dhaxeeya oo sidaa ku sii kobco. midda xigta waxa weeye who can apply yaa xarayn kara. marka website-ka hadda booqato waxa ku arkaysaa eligibility criteria oo si fiican u sharaxay cidda xarayn karta. kolay 160 wadan baa loo ogol yahay, Soomaaliya waa ku jirtaa wadamada xarayn kara application-kan. waxa kaloo laazim ah inuu qofku haysto undergraduate ama degree certificate shahaadadii degree heerka koowaad ee jaamacadda. waxaa sidoo kale laazim ah inuu haysto qofkaasi work experience oo 2 sano inuu khibrad shaqo 2 sano uu leeyahay oo guud ahaan noqonaysa 2800 saacadood. marka 2800 saacadood waxaa calculate garan kartaa qasab maaha inaad hal full time haysato ama hal meel ka soo shaqeysay. waxaa kale oo iyagana la tirinaya part time ka internship voluntary. marka haddii aad labadaas sano hal meel ka wada shaqeynaa ka walwalin waxaad samayn kartaa waxyaabahaas oo dhan baa isku dardari kartaa kadibna 2800 saacadood markay gaarto waxaa haysataa 2 years work experience. marka work experience waa wax muhiim ah laakiin aad ha uga walaacin oo waxa weeye maca voluntary waxyaabaha tabarucaadka uu qabatay ayaad ku dari kartaa. benefits ka daa u nimaano maxaa faa'iidooyinka ku jira dee waa fully funded oo fully funded mar hadduu yahay waxa weeye jaamacadii baa laga bixinayaa, jeebgelis baa lagu siinayaa aad deegaankaagii iyo waxyaabahaagii yaryaraa aad ku qabsatid ticketskii oo imaanshihii iyo laabashadii aa wadanka ka imanaysay markaa laabanaysay baa laga caawinayaa. waxa kaloo kasii muhiimsan in aad ka mid noqonaysid global network oo 50,000 iyo ka badan ina familiga Chevening goorta ku beedid ay networkaas ay waxyaabo badan ku fududeyn karaan. in aad xaggan inta ku sugan tahay aad helaysid seminaaro, workshops, waxyaabo badan oo khibradaada si horumarinaya iyo culture wadan cusub aad arkaysid. waxyaabaha wax faa'iidooyinka la socda. haddaba markii ay xagga marisay dad badan baa waxay dhahaan okay sidee baan u apply gareeyaa, how to apply. marka aad xariinaysid waxa aniga aan sameeyay wuxuu ahaa processkan markii aan soo bilaabay October in aan website-ka booqday. anu qof kasta waa kula taliyaa inuu website-ka marka hore booqdo website-ka rasmiga Chevening linkigana hoos baa inuu ku reebayaa. in goorta website-ka booqatid aad isaga akhrisid oo aad familiar la noqotid waxaan soo shaqeeyo waxa ku jirta guidance-igaas oo kala akhri frequently asked questions oo runtii aad ku caawinay su'aalahan badan ee maskaxdaada ku jira aad isleedahay dadka weydii 99% waa laga jawaabay. marka frequently asked questions inta sii dhex gashid xaggaas ka fiyo su'aasha u baahan tahay waliba way si kala organize gareeyeen oo way kala qaybiyeen. marka goortaad systemka fahantid oo aad familiar la noqotid website-ka ayaad waxaad u sii gudbi kartaa inaad xisaab ka furatid ama account ka furatid smart symbol oo ah application-ka meesha aad gelinaysid inta iska register garaysid baa xagga process ka sii wadaysaa.
runtii waa applicationkan waa application simple anuu application horaan xareeyo midkan jarmalka daad uu kamid ahaa oo very complicated ahaa oo aad aan ugu wareeray laakiin kan qaabka uu design garaysan yahay aad bay simple u tahay xog badanna waa helaysaa waxaa jira dad bloggers oo scholarshipkan ku guuleystay oo qoray marka iyagana waa akhrin kartaa waxyaabaha ay mareen processka ay mareen data badan baa helaysaa marka sidoo kale waxa aad facekan koowaad sameynaysaa inta aadan isdiiwaan gelin inaad baaritaan dheer ku sameysid jaamacadaha 3 jaamacadood baa la rabaa inaad magacyadooda gelisid hadhowna mid kamid ugu yaraan unconditional offer ka keensatid marka jaamacadahaas waa inaad adigu sii baartaa oo aad sii doorataa marka waxaa jira website kale oo isna la yiraahdo websitekaas baad ka fiirinaysaa jaamacadaha kadib jaamacadaha gudaha u sii gelaysaa kulliyadda dadka wax ka dhiga taariikhdeeda waxaasoo dhan adaa sii baaraya marka research badan baa la isaga baahan yahay inta aadan runtii gudaha u gelin oo aadan bilaabin inaad essayga iyo qortid ama applicationka hawlihiisa culus aadan samayn mid kale oo muhiima oo aan runtii arkay intaan processkan ku jiray baa waxay ahayd korta processkan cagaha gelisid oo bilowdid baa waxaad dareemaysaa wuxuu kaa dhigayaa inaad ka fikirtid waxa aad doonaysid inaad taqaanid waa muhiim know your why aad waxaan u xareynaysaa su'aalahaas aad bay lafdhabar ugu yihiin hadhow essayga aad baan ugu sharaxi doonaa why this scholarship why the UK why this university why this program waxaasoo dhan waa lagu weydiinayaa marka qofku bilowga intuusan waxaasoo dhan qorin uusan dhammaystirin inuu laftirkiisu ka fakero application uu kugu riixayaa inaad markaas ka fikirtid why aad waxaan u sameynaysaa kulliyadda u sameynaysaa ama programkan u dooratay marka inaad ku baraarugsanaatid oo aad taqaanid sababta magarad wax badan bay kaa caawinaysaa runtii okay marka waxaynu soo sheegnay wixii la isaga baahnaa requirementska work experience inaad jaamacad unconditional offer ka haysatid oo iyaduna muhiim ah 3 jaamacadood midkood in aad degree haysatid ama undergraduate iyo inaad wadamada ka mid tahay waxaan kaloo soo sheegnay faa'iidooyinka iyo wixii ku jiray iyo scholarshipka oo xogtiisa guud xaggaas markaad timaadeen baad waxaad samaysaan idinkuna waad isdiiwaan gelisay qofku goortuu systemkii furay oo uu isdiiwaan geliyo verify gareeyay emailkiisii wax ka soo baxaya questionnaire yar oo isna eligibility camal isna ka jawaabisid kadib baad toos wax ugu soo gudbiysaa applicationkaaga marka haddaan u imaado qaybta war maxaad nagu dari kartaa intaas ama waan ognahay ama intaas waan sameeyay ka soo qaad maxaa ku dari kartaa anigu waxaan roonahay step aad kale muhiim oo anigana i caawiya wuxuu organizationka iyo discipline inuu qofku aad u organized u yahay in computerkaaga ay ugu yaraan ku jiro folder Chevening la dhaho kaas oo aad ku guratid dhammaan wax kastoo lagaaga baahan yahay waxaan kula talinayaa qofkaas inuu sameeyo checklist uu ku qoro waxyaabaha uu u baahan yahay inuu qabto waxyaabaha uu u baahan yahay inuu buuxiyo ama uu qoro kadibna aad saa u tiggaraysid mid kastoo aad samaysid marka inaad aad organized u tahay waxay kaa caawinaysaa inaadan barnaamijka ka caajisin laana processkan dad badan baa intay bilaabaan iyagu essayga kii labaad maray ama kii saddexaad ka caajiso faraha ka qaada si aadan uga caajisin marka inta aadan bilaabin waxaad isku daydaa inaad organized noqotid oo documentiyadii PDF soo bedeshid oo referenceski meel dhigtid oo aad u dirtid email la xiriirtid macallimiintaada maca horaad ula sii xiriiri kartaa haddaad relationship laana dad badan jecel way waqti hore ka tageen ama ay ka qalin jabiyeen marka relationshipka hadda si asaasi kartaa mar labaad baad boorka ka sii jafi kartaa salaamay u sii diri kartaa lan ilaa February baa haysataa saad referenceska u dirtid marka inuu qofku organized aad bay muhiim u tahay research mid ka labaad waxa weeye inaad baaritaan intensive samaysid in aad baartid jaamacadaada waxa weeye dadka kale essayada si qoreen baaritaankun aad buu muhiim yahay wataa muuqaalkan kan xiga waxa aan si qoto dheer uga sheekayn doono ama aan u sharaxi doona essayska iyo sida loo qoro iyo wixii aan wadadii aan u maray khibradayda ku saabsaneed intii aan essayga qorayay haddii ay jiraan wax su'aalo aad qabtaan so far hoos igu la wadaaga commentiga igu soo reeba ama Instagramkayga shaashadeena kan muuqda igu soo qora waxa aan rajaynayaa in aan qaybtan halkan ku soo gabagabeeyo mar raba inaan xog fara badan hal mar يعني dadka madaxa uga wareeriyo inaan 3 2 qayb 4 qaybood ka dhigan doonaya oo isla isbuucan aan ku soo gabagabeeyo waxaan dareensanahay in uu barnaamijku gabagaba yahay oo waqti uusan harin qofkaas waxaan kula talinayaa inuusan waxba panic samayn in uu tu istajiyo waqtigiisa qaata ka fakaro erey kasta oo qorayo iyo step kasta oo qaadayo
organization kuna aad buu muhiim u yahay waxaa garan isku ururso waxa way good luck bilow fiican waxa inoo balan qaybta xigta essayga iyo qaybaha ku sii xiga oo aan jaamacadda kaga hadli doono ilaa kulanti dambe oo xiiso leh soo share isma dhaafin fadlan channelkan like subscribe lana si wadaag muuqaalkan cidda isleedahay waan faacaya. Assalamu alaykum.